kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka janalka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo ku jeestay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa shacabka Kenya oo maanta u dareeray doorashada dalkaasi ka socota ee madaxtinimada dalka Kenya iyo FBI-da Mareykanka oo baaritaan ku sameynaysa guriga uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Donald J. Trump. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warka janalka galka wararka. madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in dowladdiisa ay diyaar u tahay inay Soomaaliya ay ka caawiso dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab balse uusan dalkiisu lahayn awood dhaqaale oo uu ku bixiyo mushaharaadka ciidamada Soomaaliya oo dhan. waxaan Soomaaliya aan ka caawin karnaa sidii Al-Shabaab looga adkaan lahaa haddii ay tahay su'aashu hub waa iibsan kartaan drees waanad iibsan kartaan xitaa cunno ayaan idinla wadaagi karnaa laakiin marnaba ma karno ama ma awoodno in ciidamada Soomaaliya aan mushahar siino. Yoweri Museveni waxa uu sheegay in dhaqanka Soomaalida madaxdeeda ay tahay in ay markasta madaxda caalamka ay weydiistaan dhaqaale taasna ayna Soomaaliya u baahnayn ay Soomaaliya u baahan tahay inay isku tashato ay wadankeeda nabadgeliyo ka dhigto. haddii aad u baahan tihiin dhaqaale waxaad weydiisan kartaan Qatar, Turkiga ama Imaaraadka inay maalgeliyaan tababarada askarta Soomaalida ayay idinka taageeri karaan balse wax walba la idinkama taageeri karo. sidaasi waxaa yiri madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni. waxa uu intaasi ku daray in nabadgelyadu ay tahay lama huraan, jiritaanka qaranka Soomaaliya uu yahay lama huraan balse marnaba uusan wax tuugsi iyo wax weydiisa meesha ku jirin. madaxweynaha dalkaasi Uganda Yoweri Museveni ayaa hadalkan ka sheegay kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhacay magaalada Kampala oo uu ku tagay booqasho 2 maalmood. codbixiyaasha dalkaasi Kenya ayaa u dareeray goobaha ay yaalaan sanduuqyada lagu codeynayo ee doorashada madaxtinimada dalkaasi oo ay ku dooran doonaan madaxweynaha cusub ee bedelaya Uhuru Kenyatta. maamulka Kenyatta ayaa soo afsharmi doona kadib markii ay dhamaatay 2 muddaxileed ee uu ku maamulayay dalkaasi Kenya muddo 10 sano ah. madaxweynaha kursiga banaanaya ayaa doorashada ku garab taagan siyaasiga muddada dheer mucaaradka ahaa ee horeyna u ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Kenya Raila Odinga isagoo oo kasoo horjeeda madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto. Mr. Ruto oo kamid ah musharaxiinta ugu cadcad ayaa aroortii hore ee saaka ku kalahay inuu codeeyo isagoo oo sheegay in sababta waqtiga uu hore u codeeyay ay tahay in taageerayaashiisa ay dhammaan wada tagaan goobaha ay ka socoto codbixinta si uu ugu adkaado doorashada. saraakiil ka tirsan hay'adda FBI-da ee Mareykanka ayaa la sheegay inay baadhis ay ku sameynayaan qasriga weyn ee uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump oo ku yaala gobolka Florida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada FBI-du ay weerareen gurigiisa raaxada. Trump ma uusan sheegin sababta uu u dhacay weerarka sidoo kalena waaxda cadaaladda ee Mareykanka ayaa iyana isla markiiba aan ka hadlin cidda amartay in madaxweynihii hore gurigiisa la baaro. madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka ayaa dowladda ku eedeeyay anshax xumo iyo dhaqan dacwad oogista ah isagoo oo sheegay in weerarku uu la mid yahay in si khaldan loo adeegsaday nidaamka cadaaladda. Donald J. Trump ayaa sheegay in saraakiisha FBI-da ay xitaa jabsadeen khasnadihii kaydka gurigiisa. tallaabadan ay qaadeen saraakiisha FBI-da ayaa ku soo aadaysa iyada oo baadhis lagu wado madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka halka uu isaguna isu diyaarinayo inuu mar kale u tartamo kursiga madaxtinimada Mareykanka marka la gaaro sanadka 2024. daawadayaal intaa waxaan ugu eeg warkii aad kala socoteen janalka galka wararka. intaan dib ugu kulmi doono warkan lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka subscribe noo saar si share garee si uu dad badan u gaaro warka galka wararka.